waan idin mahadnaqayaa nimankii dhalinyarta xafiiskayga igu soo booqday waanan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ilaahayna xanuunada jira hay naga dulqaado rabadaatana hay naga aqbalo ilaahay waxaan ka baryaynaa in haweenku yar durugteena batay ilaahay inuu nacafiyo inoo naxariiso fadliga bisha ramadaan inta hadaan ka baxdo su'aal aad iyo aad muhiim oo fiican oo qaali ah runtii horta imtixaanaadka wada ogtiino awal waxa la qaadi jiray juun baan qaadi jiray saad ka warhaysaan idinkuba كل saxaabadu waxa daba socotaan mar walba waxay dareemayaan daway isbedelka wadanka ka dhacday inaad la socotaan waan ognahay oo daba socotaan juun waxaan uga soo yar kacnay markii hore May baan rabnay inaan ka dhigno hadana May waxa dalka ka dhacay abaarihii iyo colaadayada fududo ceelafweyn iyo meelaha ka jiray awgeed baa waxaan u niri dhulkooda xasilan ad ka dhigtaan sidaasaan horta u tagnay Juulay kowdeeda ayaanu ka dhignay imtixaanaadkii waxa tabaysaana waxa way juun baa la qaadi jiray talo imika halkan la tagay bal waxa jira sababtu wax kala ma in kamta idin sheego waxay abaaraha iyo iyaro grifgrifo ka jirtay halka ayaa waxa rabnaa ardad maadaama imtixaan isku mid gelayaan dalku inay iswada gaaraan waxa kale oo iyaduna jirtay manhajka saadogtiin sanadka waxa nagu cusbaa manhajkii ayaa cusbaa Somaliland oo aan awal cid baa inoo soo daabici jirtay adamana jirinba فالهوسة أمي كسرنا ما بتريشين كيف إنه سبيسناي أو أنتي كومبانيا ترتسيه قالوا كوب واحدة قالوا راح يا مفوكس تبدي تو منهج كائن كوب حسكري وسعر دوخ برشلونة تبدي تو واحد مسوين الكاس إدرتينا أو قرط بيسورة دعوات ما دوي كقارب سامين أيا دي مركز صوبها أو جود ما مقول إن تشوله هدول هايلا مركز أنت كره أدوي دي سرية دونا هايلين فال شوبان يوحبال الشيء يا يكوه رمضان runtii waxa weey imtixaanka horta naqliga ah inta badan faraha wax ku haya imtixaankan ugu dambeeya ee sanad dugsiyeedka imtixaanka sanad dugsiyeedka ugu dambeeya waxa gacanta ku haya runtii go'aankiisa ugu dambeeya wasaaradda anagu wasaaradda waxbarashada marka inta badan wasiirka iyo DG-gana way ka hadlaan iyo qolada gudoomiyaasha waxbarashada gobolada waxaan san ka warhayo meelaha qaar dib baa loo yar dhigay meelaha qaarna uu socdaa qaarna uu bilaabmaya laakiin xaqiiqadu waxaad ka weydiin doontaa runtii in ka warram doonto wasaaradda waxbarashada kan hadaba shahaadiga ah ee foorfoorada iyo gelaya sideedaad ilaa imika wuxuu noogu mudaysan yahay bisha koodeeda bisha toddobaad koodeeda taasana jecelahay in la faafiyo wax isbedelo oo ilaa imika aanu samaynayna ma jiro arrinta waxaan jecelahay fariinteena si wanaagsan iga gaarsiisaan ardayda iyo dadweynahaba isagu ma laha imika ilaa imika isagu imtixaankaasi de masiibo nagu timaado mooyee isagu dhaqdhaqaaq ma leh ilaahay waxaan ka magan gelaynaa inuu wax masiiba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay inta naga yeekiisiyo daacunka waxaan ku rajo weynahay waqtiga loo mudeeyay oo bisha koowaad bisha toddobaad koodeeda first July ayaa isaga la gelaya waana sidiisa caadiga wax isbedelo ku jira ma jiro sanadka tirada oo fadhiisanaysa runtii aad bay u korodhay waliba dugsiyada dhexe aad u kordhay waxana saameyn ku yeelatay runtii lacagtii laga daayay inkastoo dhinac kale maamulayaashu ka codonay lacagtii laga daayay yiraahdaan dhibaato lagu keentay laakiin kororka ardayda marka la eego aad bay u saameysay oo waxa u dhici kartay dayar fara badan oo lacagaha badan awoodtii soo gashay runtii marka waan sida dugsiga dhexe markaan idin sheegay tirada sanadkan imtixaanka u fadhiisanaysa waxa weeye duulahay idmo ilaa 17,500 arday ayo kasarana waxa uu fadhiisanaya 10,200 arday sano imika ku talagalkeedu yahay hadda waxa soo baxa arday drop out gareyso imtixaan ka baqda kuwa si kale iskaga daaya waxyaabo badan baa soo baxba laakiin ku talagalkayaga imika haduu ilaahay idmo waa sidaa manhajku sanadka waxa weeye saad ogtihiin in kulli laga yaabo badidina dee ardaydu wax ka soo baxay dugsiyada sare waxa lagu qaadi jiray imtixaanka form 4 ka wad garanaysaa form 1 ka percentage kamida form 1 ka qaadi jiray iyo percentage kamida form 2 iyo percentage kamida form 3 iyo percentage kamida fork boqolka boqolleyda waa loo qaybin jiray afarta fasal dugsiga sare waxa sanadkan ugu bishaareynaya forforada idinka jecel fariinta inay gudbisaan oo gaarsiisaan sanadka waxa lagu wada qaadaya boqolkiiba boqol ama ila boqolkiiba 9.5 waxa ku qaadayna haduu ilaahay idmo fasalka afraad kaliya marka way kala sii badan yihiin dadkiina hore iyagana laakiin waxaan mid baan uga fadhiyaa sanadka haba yaraatay wax jiitina dagaal baan ku qaadayna taa bedelkayga waxaan ka dhignay
inaynu jiitinka si adag ula dagaalana hadduu ilahay marka iyaguna inay ku talagelin sanadkaa inuu jiri doono mar haddaynu fasal keliya kaga qaadayno book 4 keliya lagaga qaadayo waa nebiyo ninba naftaate halkay Soomaalidu ku mahmaahi jirtay nin walba markaa waxa daraasho weeyay moogti marka waxa weey ardada waxa jecelahay runtii maadaama sidaa yahay waxaad ka fargareyn jirteen afar buug ayaa la ka fargareyn jiray oo diyaari jirtay oo mid walba soo akhrisatay formal ilaa form 4 bil hore ugu dambeysay mar haddii form 4 keliya laga dhigay caaqilku uu fahmi karaa ninka caqli wanaagsan uu garan karaa inaan cheating loo fadhiyin marka cheating inta lagu cafis oo sameyn mayno hadduu ilahay idmo waan sir weyn baan kole qaban doonaa waxa laga yaabaa kole dhiijiga galab maanta tobanka balansanaa shirka ku dhiiso inuu berrito ku beegmo arbacada in sir weyn oo kaga hadlayno cheating runtii waan la dagaalamay cheating waxaan aad u qurux badan runtii iyad weydiinaysa waan ku faraxsanahay tayadii waxbarashada sideeda waxaan u bixinay sanadkan tayayntii waxbarashada iyo la dagaalanka cheating wasiirka ku dhawaaqay aniga wasiirku shir bari dhawtaan u qabanay magacaas aan kaga dhawaaqnay sanadkan waxaan u bixinay sanadkii la dagaalanka cheating-ka iyo tayaynta waxbarashada wuxuu kaga duwanaanaya horta wixii loo jiray D- meesha waanu ka saarnay arday dambe oo D- mar haddaynu wax tayaynayno waa inay ardayda tartantaa grade horana idinku waad garanaysaa waqtiyadiinii aad baa ardaydu u daadan jirtay waan xasuustaa sanadaad ka baxdeen badidiinu ardaydu aad berigii dambe waxaan weynu yar dabcinay waxay nagu batay arday hebel ardaydii way isgubaysaa way isdilayaan kolkooda waxaas ay nagu batay runtii iyadoo taa laga duulaya haddana siyaasaan waxoogaa aynu nibal ardaydu aynu grade-ka hoos u yar dhigno haddaba waxa weeye tii imika mar hadday tayaynta aynu bilownay ardaydu waxay ogta D- waxaa ma jiro wax kaloo noo qola xitaa ardayda hore D- ka ahayd inay mar labaad sigsaan imtixaanka u fadhiistaan taana fariin ahaan baan ugu diray ardaygii D- haystay shahaadadiisa ee raba inuu dib u diyaariyo imtixaankii waa noo qola asa practical day waa qaadi karnaa iskuulkiisa